marka hore shirka kani maanta lagu qabtay hotelkan waxaana loo qabtay sababo jira awgood iyo colaado iyo dhibaatooyin soo kordhay ee ku soo kordhay deegaanada ay degan yihiin ay degantaa beeshan oo u dhaxeeya aadan yabaal ilaa ceel baraf ilaa meertuuga waxa shirkan jaraa'id laga qabtayna ma ahan dagaal beeleedyo u dhaxeeya beelo wada deegaankaas waxa shirkan jaraa'id laga qabtay waxay yihiin dhibaatooyin soo laalaabtay oo yacni maaragtay ishugsan oo aysan ka mireyn gacmo shisheeye oo lagu dilaayo amba lagu beegsaayo beeshan iyadoo la leeyahay waxaa lala diriraa cadow oo waxaa lala diriraa shabaab iyadoo sidaas ay yihiin maaragtay qorshooyinka amba hadafka iyo yacni maaragtay wax lagu raadinayo ma ahin waxa la dilaayo shabaab ma ahin waxa duulaan lagu yahay shabaab waa dadkan deegaanadoodii dadka la dilay 24 saac waa beeraley waa xoololey waa dad xoolo dhaqataa oo deegaankaas degan dawladaha diriska haddii aan ka warrano dawladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle Soomaalidu dawladaha diriska asigay u jeclaaday waa ka xunnaha marka inuu qabiil inyo hubeeyo qabiilna ku dilo aad aan uga xunnahay waxa laga yaabaa inay arintaas ay saraakiisha Jabuuti ayna xogteera si fiican u hayn wax badan aan anigu ka aamusnay waa aamus weynay laakiin haddaan leenahay ogaato yay qabiil hubeynayno in qabiilku dilin in qabiil la dilo ee dhulkiisa lagu qabsado ee qabiilka dilaya dhaawiciisa diyaarad lagu soo qaado gaari dawladu leedahay amba amisoon leedahay hubaysan lagu doono kuwa kalena dad shacab oo wadooyinka ku soo jiido ay dhaawac u dhintaan aad aan uga xunnahay hirshabeelle iidaa xukunta dalka iidaa laga rabaa nabadgelyada inay nalaayo haddayna wax ka qaban arrintaas hadday wax ka qabato alxamdulilah hadday ka qaban weyso waad naqaanaa qoryahaynaan qaadaynaa dalafaan gelinaa dowladda federaalkana u sheegaynaa wixii ka yimid maanta ka dambe iyo ka islaamta wax ka qaban waxaa la yidhi cabdulaahi maxamuud siyaad waa cunug yar waad u jeediin oo 12 jir ah oo gurigiisa lagu dilay marka dowladda federaalka hadda waxa laga gedayo inay ogaataan aad iyo aad ay u fiican tahay